yaryaroo kooban laakiin waxa idinka hormarinayaa horta waxaan rabaa inaan ragga jooga caawa in aan isku dayo bal inaan dumarka idin baro dumarka hal shay baa idinka baraya walaalayaal dumar haddaan nahay dumarku waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan waxbay sarriftaa waxbay badisaa ma garatay badanka waxaa la yidhaahdaa incubator ayaa la yidhahdaa incubator waxaa la yidhaahdaa meesha ilmaha isagoo saqiira la geliyo uu ku kobco markuu caloosha hooyadii isagoo yar uu ka soo baxo marka dumarku waa incubator baa la yidhahdaa walaalayaal shay baad u dhiiban way kuu badini 10 shay bay kaaga dhigi marka kaba soo qaad raashin yar baad u keeni maxay kuu samayni cunto dhan ayay kuu samaynaysaa maaha raashinkiyo qayriin baad u keeni laakiin cunto dhan ayay kuu samaynaysaa waxaa kaloo la yidhaahdaa in hal habeen baad u tagtay jimaacaas manidaadoo macno ku fadhiin oo jidhkaagaba aad u nacaysid ayaad u dhiibatay maxay kuu keentay ilmo dhan ayay kuu keentay ay kuu dhashay marka waxa weeyaan waxaad nacaysaad u dhiibtay laakiin waxaad ku farxday iyadu ku siisay incubator baa la yidhahdaa dumarka waxa weeyaan isla markaa waxa ku jira haddii aad kelmad xun tidhaahdidna adigana maxay kugu samayn kelmadii oo 10 lagu dhiftay diyaar u noqo weena diyaar u noqotin haddii hadal fiican aad tidhaahdidna farxad bay ku siini ka badan marka dumarka iska jira rago waxa weeyaan wixii aad u dhiibatid ayay kuu badinaysaa ay kuu sarrifaysaa marka ka fiirsada sida loola dhaqmo dumarka ka fiirsada kaliya su'aalaha intaan weydiin waxaan xasuustaa hadalkii Ali radiyallahu anhu uu yiri markuu sifeynayay uu macnaynay guurku wuxuu yahay annagu guurka ilaahay baa run jecel anu waagaan guursanayay ninkan Axmed Jawhar oo dhalinyara oo tinta ku taalo ayaa ma aragtay jeclaaday waa iska aroosay wax iga dambeeyay iyo hawli sugaysi iyo waxba ma ogeyn ma garateen laakiin gadaal baan wax badan ka baranay dadkuna sidaas ay u badan yihiin walaalayaal laakiin Ali markii la weydiiyay guurka wuxuu yiri waa suruuru shahr waa farxad yar oo bil lagu tilmaamo iyo muxuu yiri iyo qumuumu dahr buu yiri iyo murug iyo fikrad iyo hawl iyo mas'uuliyad noloshaada oo dhan kula soconays waa run ilbaabka guurka markaad soo gashid diyaar u noqo mas'uuliyad culus oo ka harin diyaar u noqo muxuu yiri oo ku sii xiga waa kusuuru dhahr dhabarkaaga ayay mas'uuliyadaasi jabinaysaa buu yiri Ali radiyallahu anhu marka dabar jab iyo culays ayaa maartay guurka ku jira iyo nuzuulul qabrigana saasaad ku galaysaa marka annagu maxaan ka dhiganay suruuru shahrigi baan ka dhiganay daa'im suruuru daa'im inuu noo noqdo mas'uuliyadiina waxaan ka dhiganay wax yar ya marka looma baahna walaalayaal marka 3 su'aalood oo kaliya ayaan rabaa 3 maartay waliba dadka isqabay oo 5 sano iyo in ka badan isqabay inaan weydiiyo su'aalahaas insha Allah mikrofoonka insha Allah hala siiyo waxay yihiin adigu maxaad ka aaminsan tahay guurka maxaad ka aaminsan tahay inaad noo sheegtid guurku muxuu ku yahay agtaada macnuhu ku sameeynaya guurka walaalayaal waxaad kala noogu daraysaa maadaama cimrigaas aad soo qaadatay oo Ilaahay guurkaas ku siiyay hal secret oo amba hal sir oo adiga reerkaagu aad ku nooshihiin mar rabna dadka kale inaan weydiino buugaan waan ka soo akhrin karnay oo waa leeyahay ku akhrin laakiin sirta idinka nagu jirta Soomaali ahaan ayaa ka fiican wax walba walaalayaal waxa kale ugu dambaysa insha Allah su'aasha ugu dambaysa waxa weeyaan waxaan noo sheegtaa wax Soomaali haddaan nahay haddii aan ku dhaqanno aan ku badbaadayno guurkeenu wuxuu ku badbaadi lahaa oo hal shay oo adigu samaysid hal shay oo mujtamaca kula talinaysid iyo waxa aad ka aaminsan tahay guurka marka insha Allah ya diyaar mustaxidiin عرفت malaha waa la yara waxaan u malaynayaa su'aalo khatar ah macluumaadii weydiisaan u malaynayaa macluumaadda ku celinaya su'aasha sirta aan iskala joogno balina idin sheegto laakiin waa la idin ka rabaa idin kala waxa la yiri Soomaalidu sheega ma dhaaftee anigii buu igaga dhigay Axmed Jawhar adaa sheegay ka jawaab marka aan hadaan ku hormaro walaalayaal waana wax sax ah anigu guurka markaan guursanayay jacayl iyo farxad iyo Jawhar 4 sano iga maqaniyo waxba ii muuqday ilaahu haday mas'uuliyad ii muuqatay haduu wax kale ii muuqday waxa soo waxba iga magalin ma heli kartaa hal mar Jawhar ayay iga ahayd marka taas ayaan ka aaminsanaa laakiin guurku waa xayaa waa noloshayda
guurka maanta waxaan ka aaminsanahay inuu noloshayda dhan yahay marka noloshayda aan u danaynaya ka hor wax walba hal secret oo ani Axmed naga dhaxay waxa weeyaan saaxiib lillaahi baan saaxiib ma sha Allah barakallahu marka saaxiibtinimaduna waa wax muhiim ah wallahi saaxiib qofka la tahay waxba kaama maqna aniga intuunan zawji noqon saaxiib ruma ayuu leeyahay marka waxa weeyaan habeen aan doodaynay ayuu wiil walaal noo yimiday wuxuu yiri labadan qof saanu qaylinayno isku celcelinayna hadalka oo dooda u wadnay runtii in la iscaburiyo ma waa in la sheekaysto la hadlo marka wuxuu yiri labadan qof indha isdagaalay ayay leeyihiin hadda isku kici doonaan maxaa meesha ku dhigay marka hadalkii aan isku celcelinayno ka yaabay marka wuxuu yiri anigu intaaba sheegaysaa in ka yar xaaskayga lama sameyn karo waa la isdili ayuu yiri marka la isma dilayay hadalka hal la furo insha Allah in waxyaalaha uu guurku ku badbaado walaalayaal waxa kamida aan anigu sheegi la hal shay hadii shay qofka la yiri wax wada akhriska inaan wax wada akhrino kutubta inta leeg ee culimadu ku daashay ee la qoray inaan akhrino faa'iidada hadaan wada akhrino waan wada ognahay hadaan anu keligay akhriyo ana og haduu keligii akhriyana isaga og laakiin hadaan wada akhrino waan wada ognahay insha Allah hay mujtamaca la sii هيا ديارة مس أنا دورت أنا ما قاعد مفرط هيا ولا شن دقيقة كيف هيدا السنة هيا ويلشة يا شن سنة أرت الرير لها شن سنة يا رير لها هيا قاعد تلاتة شن سنة يوح كبدن أيار رير لها يا هيا بلو شيخ ميكروفون كقبصة كهذا الملأ عبد الله قبصة تجري عبد الله يسافر وحبان كويدينه وناشي عبد الله guurka maxaa ka aaminsan tahay hal sir oo adii xaaskaaga niga dhaxaysa iyo waxaad mujtamaca ku waanin lahayd insha Allah walaalkay hal is dhageysto hal loo wadaagaysa mujtamaca sax waa hadli kartaa walaal insha Allah mikrofon wali mishkil هاي الله قول وحنا نسمع وياي معلش الله وعمل لنا مسجد اساس فأنا عاشي في كل هاي وهذه كانت مسؤولية إلى حتى الله سبحانه وتعالى نقول بدنا نحب هاي حقنا من معرفة وحدة الصغرى أنا نروح حتى ما نكمل ما شاء الله وكل هذا يعني تسيس كل هاي الحل منه يعني ما شاء الله إن كل هاي وان حنين دوناي وقت ينوي سمعنا حتى ما شاء الله دلوقتي الصغيرة إن الحل سهل لكن أنت تفكر إنه ما شاء الله بارك الله فيك مجتمع محد كل تلنا يعني نسمع معكم لها هم طبعا يستوعبون إطلاق لا يعرفون ما نقدر ضايع لكن ما يلوح على حالته صحوة إنه سمع يكتب solution oriented إن أبوك بيجوا خلافات لكن إن السودان إلا اليوم وخلافات حل الرأس صحوة خلافات أول مفكرة ودبابين كثيرة بس لكن سوريا هاي ولكن المعارك لو على الوفر إن حلقة بارك صحوة بارك الله فيك هاي هل قفوا كلا برك إن شاء الله ما دام وقته عريري هاي هذا ماموين واجوغان بابا يلا واجوغان marka haloo dhiibo odayaashana haloo dhiibo maamooyinkana haloo dhiibo dhalinyarada khibradda halala wadaago insha Allah ya أي محمد هلا دقيقة بارك الله فيك عليكم السلام ورحمة الله ها سؤال وحويان حاسلي هذا طاي وضرر لهذا إن محل هيدا محل كأمسنت هاي إياه هل سر أو أديك إياه حاس يعني كذا إذا كده حياة إياه هل وانا أو جود أو باهن مجتمعين ويباهن سريرهن وبدبادن ولا
ومن لو بعدين المشكلة اللي يشتغل على شرطين شغالين هو اللي هو فضيلة لو اللي ما شاء الله جزاك الله خيرا. يا كلا هلا يا قفر مجرى قدر سنة إن شاء الله. أوكي إن شاء الله وما سنتين ولا ليال خير الله نسيه. إن وحنا كسر كوبي يا كليا إن ما دركت يصور كي ما جاء سي ولا عاد. بسم الله الرحمن ما شاء الله. بسم الله الرحمن waxaan rabay inaan horta su'aashii loo weydiisay inaan ka jawaabo wax kale ku kordhiyo. ما شاء الله. waxaa fiican dadka guursan wilaha guursan waxaan kula talin lahaa horta inay guursadaan markay guursadaan ilaahay dartii haddii ilaahay dartii u guursato aad rabto ilaahay subxaana watacaala gurka ugu dhawaato waa libaanaysaa ana taasaan guursaday ما شاء الله. marka qodobo dhowr aan ka qoray markaa ka hadlaysay waxaa jira ninka xuquuq uu ku leeyahay xaaskiisa xaaska xuquuq ay ku leedahay ninkeeda waxaa ka sheekaysay hadda xuquuq kale oo saddexaad aad jirto inaan ogeyn waxaa ka mid a qodobka ugu horey aad sheegaysay in guurka labada nin iyo xaaskiisa isqabaan ilaahay subxaana watacaala ay caabudaan leanno waxay isugu yimaadeen waxaa ka mid a ilaahay subxaana watacaala nabiga ugu sheegay sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi ilaahay u naxariisto islaan habeenkii soo kacday dukatay ninkeedii kicisay hadduu diidana biyo ku shugtay dagaal maaha waxaa ka mid a waa xuquuq mushtarak ayaa la yidhaahdaa waxaa ka mid a carruurta in lasla koriyo isagana mala amala waa idin dhexaysaa waxaa ka mid a sirta ayaa ka mid a sirta in la faafiyo riyahana sirta waa aragteen xaaladeeda marka waxaan ku kordhin lahaa qodobo oo waxaa jira ninkan laga rabo naagtan laga rabo aanan jirin oo la yidhahdo xuquuq almushtarak baynahumaa intaa ayaan kusoo gabagabeynaya guurkana waa in ilaahi subxaanahu watacaala loogu dhawaadaa taasaan ugu muhiimsan guurkaasna weligiis ma fushin maayo leanna waxyaabuhu ilaahay ballan qaaday ayaa waxaa ka mid ah laba qof gursatay iskuna gursatay iyo ilaahi subxaanahu watacaala ay u dhawaadaan jazakum allah بارك الله. جزاك الله خيرا. waxaan walaalaha aan uga mahadin lahaa dhammaantood siday noo dhageysteen jazaakum allahu khayran iyo si aad uga jawaabteen su'aalihii walaalkii u dambeeyey jazaahu allahu khayran qodobkii ugu horreeyey ku bilownay ayuu noo ta'kiidiyey naguna sii adkeeyey waana sii adkaynaya insha allah mar kale in gurigani uu noqdo guri ilaahay dartii u jira biidni illahi alkariim saas awgeed waxa dhici karta dadka qaarkood inay hore u soo dhaaftay taas macallimadda hadalka markay bilaabaysay marka maxay dhahday ma xasuustin tajdiidu niyya waa la xasuustaa soo maaha marka niyaddeena aan jadiidinna xataa haddayna soo dhaaftay taasi marka ilaa caawana aanan xasuusanin wakhti inagama tegin marka caawaba waxaan dhahaynaa insha allahu tacaala gurigaani wuxuu u jirayaa ilaahay dartii biidni illaahi alkariim ugu dambayntii maadaama soo xidhayno kamaanaan gaadhin wax badan oo inaan akhrino aan soo qornay ayaa meeshaan jiro risaaladan markaan ka hadlaayo aad waxaan ugu walwalaa dhallinyarada da'yarta aanan weli guur gelin ama aan xaasle iyo xaasley aan noqonin waana nicmadda ka maqan waana u duceeyaa dhallinyarada inay guur xalaal helaan oo ay ku degaan insha allahu tacaala laakiin inta inala joogta hadda caaw sidoo kale waxaan u duceeyaa inta uu guurkii ka xumaaday eeg inuu guurku kaa xumaado ma aha dembi oo ma aha maaragtay waa wax dhacay marka laakiin waxaa wax xun ah inaad ka fikiri weydo sababta uu kaaga xumaaday guurkii hore haddaad guur kala galayso inuuna guurka labaad uu kaa hallaabin ama kaa xumaanin insha allahu tacaala labadaa qoloba waan u ducaynaa insha allah inuu ilaahay wax khayr qaba uu siiyo intiina isqabta ee isla joogta ilaahay idin barakeeyo fariin baan rabaa horta yaa isla jooga halkan bal gacantaa la taago raalnimo sheekh waqti waan ka qaatay
lamaana isla jooga ma jiraan iyo caruurtii isla timid dayacna ما شاء الله حقا ودا جوغان ka wada halkan hoolkan ka wada magaalada ma sheegay hoolka odagii iyo islaantii iyo ilmihii ma soo raaceen ما شاء الله marka loo fiiriyo dhulka aan soo marnay idinka ugu badan reer Bergen ما شاء الله بارك الله فيكم حياكم الله hadda intiina ay ilmuhu guriga hooyada ay la joogta ama aabuhu la joogo iyo labadiina hadda isla joogta fariin isku dira fariin macaan oo qurux badan oo qofka kale uu ku farxo ay raali noqdo risaalaha la isku diro risalatul hubb ha la isku qor hadda idigoo raali ah sheekhu intuu hadlayo laba kalmadood aniga saaxiibada hadda u diraya insha Allah idinkuna u dira barakallahu fiikum jazakumullahu khair